dowladda Itoobiya ayaa gaashaanka ku dhufatay dalab ka yimid qaramada midoobay kaasi oo lagu sheegay baaritaan lagu sameynayo xasuuqay toddobaadkii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ee dalka Itoobiya ka geysteen gobolada Amxaarada iyo Oromiya. Afhayeenka dowladda Itoobiya Getachew Reda ayaa telefishinka Al Jazeera u sheegay in iyagu mas'uul ka yihiin dalkooda iyo dadkooda. madaxa xuquuqul insaanka qaramada midoobay Saciid Rashaad Al-Xuseen ayaa sheegay in dowladdu awood xad dhaaf ah isticmaashay markii ay dibadbaxyadu socdeen, wuxuuna intaasi ku daray in wadaxaajood lagula jiro dowladda dhexe ee Itoobiya isagoo dadaal ugu jira in koox ka socota qaramada midoobay loo ogolaado inay baaritaan madax bannaan ku sameeyaan wixii ka dhacay dalka Itoobiya. afhayeenka dowladda Itoobiya Getachew Reda ayaa sheegay in dalkiisu baari doono xadgudubyada la sheegay, waxa uuna si toos ah gaashaanka ugu dhuftay in Itoobiya ogolaato gacan shisheeye. Mr. Reda ayaa dibadbaxayaasha ku sheegay kooxaha argagixisa iyadoo dalka Itoobiya qof walba oo ka soo horjeeda dowladda loogu yeero argagixiso. hay-adda Amnesty International ayaa dhaleeceysay taliska dhexe ee Addis Ababa waxayna sheegtay in ay dad gaaraya 100 ruux oo shacab lagu dilay qulqulatooyinka iyo dibadbaxyada ka dhacay dalka Itoobiya. warar rasmi ah oo ka helay magaalada Gondar ee gobolka Xabashida ayaa sheegaya in dhammaanba dadka ka soo jeeda qoomiyadda Tigray isaga baxeen magaalada Gondar iyo nawaaxigeeda kadib markii kooxaha hubeysan dilal kharajina ku fuliyeen ganacsato u dhashay qoomiyadda Tigray oo ku nool magaalada Gondar iyo nawaaxigeeda. boqolaal ka tirsan qoomiyadda Tigray ayaa xalay saqdhexe isaga baxay magaalada Abraha Jira oo hoos yimaada magaaladaasi Gondar, sida uu sheegay mid ka mid ah saxafiyiinta madaxa bannaan ee ku nool magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. dablaydan hubeysan ayaa weerar qoshaysan waxa ay ku dileen ganacsado u dhashay qoomiyadda Tigray, waxayna sidoo kale wararku sheegayaan in dadka ka soo jeeda qoomiyadda Tigray iskaga carareen hanti wixii ay lahaayeen oo la biliiqaystay. dowladda dhexe Itoobiya oo ka hadashay dhacdadan ayaa tirada dadka qaxay ku sheegtay 50 ilaa 60 inta u dhaxaysa, balse waxaa sheegashadaasi beeniyay dad goobjoogayaal oo sheegay in gebi ahaanba dadka u dhashay qoomiyadani ka baxeen gobolka Amxaarada ee Itoobiya. maleeshiya hubeysan oo lagu sheegay dadka deegaanka ayaa waxay sidoo kale weerar ku qaadeen magaalooyinka Sanjab iyo deegaano kale, waxayna warar xogagaalihi sheegayaan in kooxda TPLF hub qaybisay dadka ka soo jeeda qoomiyadda Tigray. jabhadda TPLF ayaa ku eedeysay qulqulatooyinka iyo bartilmaameedka lagula kacay dadka Tigray inay ka dambeeyaan madaxda kilalka Xabashida, iyadoo si gaar ah farta ugu fiiqday xisbiga ay bahwadaagta yihiin ee ANDM. boqolaal maleeshiya ayaa isku gadaamay nawaaxiga magaalada Gondar, waxaana dowladda dhexe ee dalka Itoobiya ay hawada ka saartay khadka isgaarsiinta si aan loo ogaanin dambiyada iyo xadgudubyada ka dhacaya gobolkaasi. sidoo kale dowladda dhexe Itoobiya ayaa magaalada Gondar iyo nawaaxigeeda u dirtay kumanaan ka tirsan ciidamada militariga dalkeeda. telefishinka qaranka ee dalka Sweden ee SVT ayaa sii daayay warbixin dheer oo kaga hadlayo tacadiyada iyo gaboodfalada ay ciidamada ammaanka ee kooxda TPLF kula kaceen dad shacab oo si nabadgelyo ugu banaanbaxayay fagaaraha caanka ee Maskal Square ee bartamaha magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. warbixin lagu daabacay SVT ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka Itoobiya fuliyeen tallaabo waxshinimo ah, iyadoo la arkayo booliiska federaalka iyo ciidamada militariga Itoobiya oo si arxan darro u garaacaya dad shacab sida warbixinta lagu sheegay. muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada USTV ku sheegay midaan ku wanaagsanayn daawashada iyo indhaha bini'aadamka, iyadoo caruurta daadoodu ka yartahay 18 jirka looga digay inay daawadaan. dibadbaxyada ka socda dalka Itoobiya ayaan war badan laga haynin kadib markii ay dowladdu hawada ka saartay dhammaanba khadka internetka, iyadoo ku andacoonaysa in kooxaha abaabulaya dibadbaxyadu ay isticmaalayaan baraha bulshada ku xidhiidhan sida Twitter iyo Facebook.